kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa kaydka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah Mukhtaar Roobo oo Mansuur oo ka baxsaday hoygii uu ku xirnaa ee ku yaala Muqdisho iyo ciidanka nabadsugadda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya oo bilaabay howlgalladii ugu ballaarnaa ee lagu baadigoobayo baxsadka Mukhtaar Roobo oo Mansuur madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo xayiraad ku soo rogay ra'iisul wasaare Roble xilli baaritaanadii ugu horreeyay ee ku bilowdeen ra'iisul wasaare Roble shirka golaha wadatashiga qaran una dhaxeeya ra'iisul wasaare Roble madaxda maamul goboleedyada iyo guddoonka gobolka Banaadir oo galay maalintii labaad iyo qodobo xasaasi oo looga hadlay kulankaas iyo ciidamada ammaanka ee dawlad goboleedka Puntland oo gacanta ku soo dhigay gaari lagu soo qariyay hub sharci darra iyo saanad ciidan intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikiyaatna u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhameystiran waa 4 bisha koowaad sanada 2021 haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo soo booqatay channelkeena haylaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer gareynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay amar culus ayaa la dul dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sida aanu ka helno xogo hoose oo soo baxaya madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa amar culus waxa uu dul dhigay ra'iisul wasaare Roble kaas oo ku aadan inuusan aadin karin socdaal banaanka ah iyadoo la sheegay inay ku bilaabanayso baaris madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka duulaya qorshayaal kala duwan oo wada ra'iisul wasaare Roble isla markaana shaqo joojin dhawaan ku sameeyay ayaa xilligan waxa uu bilaabay in mar kale uu amar culus dul dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kaas oo hore loo shaaciyay in xilkii uu hay laga qaaday madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa laamaha amniga waxa uu ku amray in ra'iisul wasaare Roble si hoose ula socdaan dhaqdhaqaaqiisa sidoo kalena waxaa jira ila amni oo la dhigay garoonka diyaaradaha kuwaas oo ku aadan inay baaraan ra'iisul wasaare Roble xilliga uu ka baxay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaana jira amar ah in ra'iisul wasaare Roble gabi ahaanba uusan ka bixi karin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ilaa inta laga soo gabagabeynayo baarista kiiskiisa eedaha ugu waaweyn ee wajahaya ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa qayb ka ah dhulboob uu ka sameeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kaas oo kol horeeto uu ku dhawaaqay taliyaha ciidamada badda isla markaana la sheegay in guddi loo saaray kaas oo soo baari doono sida ay wax u dhaceen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaa la tilmaamay inuu lugta u weyn ku lahaa dhulkaas oo ciidanka badda ay leeyihiin isla markaana ah mid la boobay sidoo kalena laga iibinayay ganacsato amarka uu soo saaray madaxweynaha dawladda Soomaaliya isla markaana ku wajahan ra'iisul wasaare Roble ayaa si adag waxa uu saameyn doonaa socdaaladii banaanka ahaa ee ra'iisul wasaare Roble waxaana gabi ahaanba la hakiyay socdaalkiisii dibadda ahaa ilaa inta la ogaanayo kiiskan iyo halka uu ku dambaynayo sidoo kale waxaa jira ilo wareedyo xaqiijinaya in ra'iisul wasaare Roble akoonadiisii shakhsiga ahaa la saaray xayiraad kuwaas oo iyagana baaris wajahaya waxaa jirta hanti badan oo soo gashay akoonka ra'iisul wasaare Roble intii uu xilkan hayay waxaana xilligan la baarayaa halka lacagtaas uu ka helay ra'iisul wasaare Roble waxaana la sugi doonaa jawaabta ka soo bixi doonta dadka loo xil saaray inay baaraan ra'iisul wasaare Roble akoonadiisii iyo hantida uu leeyahay xilligan amarka ra'iisul wasaare Roble la dul dhigay ayaa waxa uu imaanayaa xilli uu sii xoogaystay khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana laba jeer madaxweynaha uu soo saaray warqado uu mar xilka kaga qaaday marna uu ku joojinay awoodda ra'iisul wasaare Roble taas oo xilligan Ahmed u muuqatay inay hirgashay amar culus ayaa la dul dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sida aanu ka helno xogo hoose oo soo baxaya madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa amar culus waxa uu dul dhigay ra'iisul wasaare Roble kaas oo ku aadan inuusan aadin karin socdaal banaanka ah iyadoo la sheegay inay ku bilaabanayso baaris madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka duulaya qorshayaal kala duwan oo wada ra'iisul wasaare Roble isla markaana shaqo joojin dhawaan ku sameeyay ayaa xilligan waxa uu bilaabay in mar kale uu amar culus dul dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kaas oo hore loo shaaciyay in xilkii uu hay laga qaaday madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa laamaha amniga waxa uu ku amray in ra'iisul wasaare Roble si hoose ula socdaan dhaqdhaqaaqiisa sidoo kalena waxaa jira ila amni oo la dhigay garoonka diyaaradaha kuwaas oo ku aadan inay baaraan ra'iisul wasaare Roble xilliga uu ka baxay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaana jira amar ah in ra'iisul wasaare Roble gabi ahaanba uusan ka bixi karin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ilaa inta laga soo gabagabeynayo baarista kiiskiisa eedaha ugu waaweyn ee wajahaya ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa qayb ka ah dhulboob uu ka sameeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kaas oo kol horeeto uu ku dhawaaqay taliyaha ciidamada badda isla markaana la sheegay in guddi loo saaray kaas oo soo baari doono sida ay wax u dhaceen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaa la tilmaamay inuu lugta u weyn ku lahaa dhulkaas oo ciidanka badda ay leeyihiin isla markaana ah mid la boobay sidoo kalena laga iibinayay ganacsato amarka uu soo saaray madaxweynaha dawladda Soomaaliya isla markaana ku wajahan ra'iisul wasaare Roble ayaa si adag waxa uu saameyn doonaa socdaaladii banaanka ahaa ee ra'iisul wasaare Roble waxaana gabi ahaanba la hakiyay socdaalkiisii dibadda ahaa ilaa inta la ogaanayo kiiskan iyo halka uu ku dambaynayo
sidoo kale waxaa jira ilo wareedyo xaqiijinaya in ra'iisul wasaare Roble akoonadiisii shakhsiga ahaa la saaray xayiraad kuwaas oo iyagana baaris wajahaya waxaa jirta hanti badan oo soo gashay akoonka ra'iisul wasaare Roble intii uu xilkan hayay waxaana xilligan la baarayaa halka lacagtaas uu ka helay ra'iisul wasaare Roble waxaana la sugi doonaa jawaabta ka soo bixi doonta dadka loo xil saaray inay baaraan ra'iisul wasaare Roble akoonadiisii iyo hantida uu leeyahay xilligan amarka ra'iisul wasaare Roble la duldhigay ayaa waxa uu imaanayaa xilli uu sii xoogaystay khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana laba jeer madaxweynaha uu soo saaray warqado uu mar xilka kaga qaadayo marna uu ku joojinayo awoodda ra'iisul wasaare Roble taas oo xilligan mid u muuqatay inay hirgashay shirka golaha wadatashiga qaran ayaa galay maalintii labaad iyadoo qodobo xasaasiya ay miiska saaran yihiin waxaa maalintii labaad galay shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka si loo wada meel dhigo qorshaha geedi socodka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxda dowlad goboleedyada kala ah Jubbaland, Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maalintii koowaad ka dooday sida loo sugi karo amniga doorashooyinka madaxdan ayaa maalinta labaad iska xog wareysanaya sida loo dhameystiri karo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee federaalka Soomaaliya oo ku dhawaad 30 xildhibaan la doortay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa si rasmi waxay u bilaabatay 1dii bishii 11aad 2021 waxaana dhowr jeer uu joogsatay muran iyo sidoo kale dacwad soo laalaabatay kuraasta la doortay ee magaalooyinka Muqdisho, Dhuusamareeb iyo Baydhabo kursigii ugu horeeyay ee la doortay oo ahaa Hoob 239 kuna guuleystay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa dacwad sababtay in 7 cisho guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal uu baaro loo qabtay ila ku dhow kulankan ayaa waxay xaqiijiyeen in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada kala ah Jubbaland, Puntland, Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ay isku raaceen in la ballaariyo kulankan dhinacyada muhiimka u ah doorashada sida beesha caalamka oo taageero dhaqaale ku bixisay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo bulshada rayidka oo lagu beeriyay si loo helo qorshe lagu dejin karo jadwalka madambeys ah oo doorashada lagu soo gabagabeynayo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa hore cabasho kaga ahaa doorashooyinka lagu qabtay magaalooyinka Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Muqdisho iyagoo tilmaamay in la boobay kuraasta qaar ee halkaas lagu doortay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xilligan waxa uu ku dadaalayaa sidii loo soo gabagabeyn lahaa doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo ka bilaabatay inta badan xarumaha maamul goboleedyada dalka isla markaana ku bilaabatay cabasho xoog leh oo ay keeneen mucaaradka iyo shakhsiyaad kale oo ku doodayay in la boobay kuraastooda kuwaas oo ka mid ahaa dadkii ku tartamayay doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinkii lagu qabtay doorashada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa gaari doona go'aanka madambeys oo lagu soo gabagabeynayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ugu dambeynna ciidamada booliska dowlad goboleedka Puntland ayaa gacanta ku dhigay gaari hubsiday howlgal ay sameeyeen ciidamada booliska gobolka bari ee Puntland iyaga oo kaashanaya laamaha sirdoonka maamulkaas iyo waxay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari ku soo qabteen gaari lagu soo qariyay hub iyo saana sharci darro ah saraakiil ka tirsan laamaha amniga ayaa sheegay in gaariga nuuciisu uu yahay iska roge lagana helay garaash lagu dhex qariyay oo ku yaala gudaha magaalada Boosaaso kadib markii la helay xog ku saabsan gaarigaas hubka siday sidoo kale waxa uu sheegay in ay xog ka hayaan cidda mas'uulka ka ah gaarigan iyo meesha loo wada hubkan isla markaana baaritaan dheeraad ah lagu sameyn doono howlgalkan ciidamada booliiska gobolka bari ay ku soo qabteen hubkan ayaa ku soo beegmayay xilli dhawaan magaalada Boosaaso ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo kuwa hay'adda BSF-ta Puntland dagaalkaas oo geystay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac isla markaana weli aanan la xalin xiisadaas ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waayihii ugu dambeeyay waxay kordhiyeen howlgallada ay kula dagaalamayaan dadka hubka sharci darrada wata isla markaana ku dhaqan deegaanada maamulkaas waxaana jira digniino culus oo ay soo saareen saraakiisha ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland kuwaas oo looga hortagayo in dhibaatooyin laga geysto deegaanada maamulka Puntland iyo in hub sharci darro lagu dhex wato magaalooyinka dowlad goboleedka Puntland uu ka arrimiyo waayihii dambe deegaanada maamulka Puntland ayaa waxa uu ku soo badanayay kooxaha dhibaatooyinka u geysta dadka shacabka iyo falalka lidiga ku ah amniga ee ka dhaca deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee maamulkaas gacanta uu ku hayo waxaana xaaladda amni ee deegaanada maamulka Puntland ay u muuqatay mid sii liidanaysa maalinba maalinta ka dambaysa inkastoo xilligan la kordhiyo howlgallada ay wadaan ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Puntland howlgalladan ayaa tan iyo markii ay bilaabeen ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland waxaa la xaqiijiyay in ammaanka magaalooyinka waaweyn ee dowlad goboleedka Puntland ay wax badan iska bedeleen isla markaana shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Puntland ay u riyaaqeen howlgallada wadajirka oo ay sameynayaan ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Puntland kuwaas oo ah kuwa si xiriir looga sameynayo magaalooyinka waaweyn ee dowlad goboleedka Puntland
guud ahaanna waxaa intaasi ku dhan warkii oo aad ka daawanayseen kaydka wararka. haddii ay tahay markii kuugu horrayso ood soo booqatid janalkeenna ha ilaawina sabskaraab tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. siina laagaree muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan oo jecel horumarka dalka iyo dowladnimada.